halkani waa Wadani Podcast. Waxaa ku jira halkan waa anigoo ah Abwaan Zaki iyo walaashay Naqwo. Kusoo dhawaada. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Abwaan Saki waan ku salaamayaa adiga iyo dadkana daawanaya iyo kuwana daawan doonaba. Waa ku mahadsan tahay. Wacalaykum assalaam waraxmatullaahi wabarakaatu. Soo dhawow, soo dhawow. Maanta waxaan ka hadlaynaa magaalada Beledweyne oo webiga ku soo fatahay. Waa gobolka Hiiraan, waa magaalada Beledweyne. Webiga Shabeelle ayaa wuxuu kusoo fatahay. Fatahaadaasna wax hadda cusub maahe, waa wax soo laabasho leh fara badan. Maxaa laga qaban karaa, sideena loola tacaali karaa hadda iyo mustaqbalkaba? Wallaahi maaragtay webiga waxyaalo badan buu geysadaa. Waa ku mahadsan tahay. Wacalaykum assalaam. Waxyaabo badan buu geystaa oo dhimasho iyo maaragtay xoolaha oo dadka ka dhamaada si maaragtay wax walba leh. Muhiimadana waxa weeye in maaragtay isha maanta markii khasaare kusoo gaaro oo maaragtay dhib nagu dhaco inaan ku waayo aragno oo berito sidii aan uga gaashaaman lahayn lagu dadaalo. Marka dee Beledweyne sheekadiisa waxay noqotay wax muddo dee 30 sano hadda dagaaladii iyo ka horba iska soo fatahi jireen. oo laguna xoolo beelayo laguna hanti beelayo laguna khasaare badan geysanaya anyway. Marka dadku ma haystaan in maaragtay webiga aniga ahaan waxaa layla qaatay in maaragtay loo dhiso biyo xireen ama meelo ay galaan biyaha loo sameeyo maaragtay xitaa haddii la qodo kale oo meel yaroo hoga camal loo sameeyo oo biyo xireen oo kale ah oo biyuhu ku shubmaan. Sidaan ognahayba dee roobku iskama da'o Soomaaliya maaragtay 12 bilood mudduu da'aa. Muddadaasna ka faa'iidaysi badan bay u baahan tahay Soomaaliya. Muddada uu roobka da'ayo in ay kayd samaystaan ay uga baxaan inta aan maaragtay roobku da'ayn. Waxyaabaha kale oo uu geysanaya waxaa ka mid ah dadka Soomaalida ah way ku hanti beelaan. Dad masaakiina guryaha ka burburaan, raashinkii biyo ka galaan, sonkortii iyo bariiskii biyo ka dhex galaan, bakhaaradii biyo soo galaan, awlaaddoodii qaar baa ku waayey. Dawlad caawinaysana ma laha oo khasaaraheeda kabaysa. Dee insurance dad ku jira oo sida wadamada hore u maray haddii khasaare kusoo gaaro lagaa caawinna ma laha. So wixii kusoo gaaraa waa kusoo gaareen, hore u qaado waaye adeena kuu taal. Waa runtaayo muxuu ahaa wadamadan hore u maray waxay leeyihiin insurance, waxay leeyihiin dee dhaqaale weyn, waxay leeyihiin federal government caawinaysa oo dee khasaaraha xitaa waxbaa loo soo dhigaa, ma fahanti? Ma laga yaabaa laakiinse dadkeena Soomaaliyeed in ay caadaysteen in ay problemka markay arkaan ama dhibaatooyinka ay arkaan in ay iska indhatiraan, ay rabaan inay wax problemkaas inuu sii jiro ama dhibaatadaas ay sii jirto si ay noqoto wax lagu tuugsado. Wallaahi dee horta wax walba dawladdu ma qaban karto. Wax walba dawladdu ma qaban karto. Soomaali ahaan waxaa naga maqan waxyaabo badan anaga aanu qabsan karnaa jira shacab ahaan. Xoog baa lala dhacdhacayaa. Dad dhalinyartu waa wada xoog badan yihiin. Hadday dadka hantida haystaana iska soo ururiyaan wax yar oo maaragtay aan dee qof walba wuxuu awoodo ah. Dhalinyartana xoogooda ay ku sadaqaystaan dee wax badan baa u badbaadi lahaa. Khasaaro uu yaraan lahaa. Marka waa iska nasiib darro haddii la yidhaahdo biyihii soo fatahay dawladda noogu wacan. Dee ma shaqaynayso. Markaan waxaan aaminsanahay dadka reer Beledweynaha ah ee meesha degan maaragtay
in ay ku dadaalaan sida ay u xalin lahaayeen dhibaatadaas oo noqnoqonaysa إن شاء الله قفكي ربنا نقل قاعد برنامج كوحة كقران 612226711 نمبر كيك هوس أي كقران يهاي نمبر كلنا مش كقران يهاي مركا أنا قايب قاعدن كرتا شو وأنا أقولنا هم وحنا ربنا دكتور شو وأنا أقولنا هاي إن أي بيحرين كاس لعق فربنا بدك أهلك لين كرا سيدي baad u malayn kartaa inay uga qayb qaadan karaan shacabka reer beledweyne ama ha ku noolaadaan dalka gudihiisa ama dalka banaankiisa sidee bay u bedeli karaan narrative-kaas muxuu ahaa dowladda inay wax noo qabato weeye shacabka say isugu tegi karaan oo ay u samaysan karaan wax iyaga anfici doona ilaan dee baahidan waa baahi soo laalaabanaysa meel walbo Soomaaliya ka midna way ka dhacdaa laakiin maanta waxaan ka hadlaynaa beledweyne dee waxay ku dhamaan kartaa in qofka uu maxay ahaytoy in dadku ay ogaadaan inay waxyaabaha qaar iyagu qabsan karaan oo ay ama xoog ha noqoto ama dhaqaale ha noqoto waxaa jirta meelaha Dakar aan ka shaqayn jiro oo kale oo dadka lagu xanaaneeyo waayeelka marka meel barxad oo kale ayaa banaaneyd meesha barxadda waddankan aan deganahay waa waddan dee oo lacag la haysta marka dawladda waxba looma tegin oo lama dhihin ilwaaxdii iyo wixii aan ku dhisi lahayn midna lama weydiin dadka waayeelada ah oo maaragtay beeshinka ah oo maaragtay laakiin xoogooda weli qaba ayaa isa soo maamulay iyaga ayaa waxooda dhan dhismaha iyo xoogooda iyo injineernimada iyo korontadii iyo wax walba iyaga ayaa isa soo maamulay iskaa wuxuu qabsay ahayd waxaa loo sameeyey hal barxad oo weyn oo ay maaragtay ay fadhiistaan marka xililka jiilaalka samarka oo kale ay tahay marka waxyaaba badan waxaad arkaysaa wadamadan iyaga qaniga ah ay dadku samaystaan iskood u samaystaan meel bridge oo kale ayaa qofka xumaanaysaa dadka maaragtay xaafadda degan ayaa ismaamulaya wixii meesha samaysanaya marka annaga waxaa naga maqanba ismaamulkii wax samaysidkee wadda biyo fadhiyaan baad arkaysaa ama Somaliland ha noqoto ama Soomaaliya mid baa iska soo jaraya isagaa mara everyday isagaa mara isagaa ku gaarigiisa mara gaarigiisa burburiyay waxaa laga yaabaa in dadka deriska hadday isku yimaadaan shamiito yar soo qaata wax dadku quraanjo ururta mulac waa jiida dadka Soomaaliyeed waxa ka maqan war annagu maxaanu qabsan karnaa marka dawladda laga soo tago hadday ogaadaan iyagu waxay qabsan karaan inta xaafaddaa degan ee baahidu hayso inta iyaga og meesha qof qurba jooga ama qof dibad jooga ama qof meesha doonaba ha ahaada inta meeshaas degaanka u degan ee ka munaafacadsata ama degan dee si wax walba arkaysa dhibka ayaa ama baahideeda leh ama baahideeda og ama hooyada ha degnaato ama ayeeda ha degnaato ama walaalka ha degnaado dadka dee dad baa degan meesha moogta intaas ay meel walba Soomaali meel walba degan tahay beledweyne kaliya maaha meel walba ay degan tahay in iyagu ay ismaamulaan isxilqaamaan waxa ay qabsan karaan aanay baahi weyn oo maaragtay dad lagu cambaareeyay dawlad lagu cambaareeyay aanay ka dhigin hadda xitaa maanta waxaan arkay Djibouti mid leh halkan baanu fadhinaa biyo yaroo dhiiq u fadhiyaa macawistii uu laaftay war adiga dhiiqada haddaad laba gaari oo ciida ku shubtay dhiiqada waa tegaysaa adiga waa inaad ku dadaashaa maxaan qabsan karaa shakhsi ahaan maxaan qabsan karnaa marka hore waxa weeye dalka Soomaaliya oo dhan waxaa ka maqan naqway sewage waxa la yiraahdo biyaha hoosta maraya ma garanaysaa looma qodo marka roobkii marka uu du'o waxay samaynaysaa mar far badan waan aragnaa dadka Soomaaliyeed inay ka caawdaan muxuu ahaa roob marna roob la'aan bay ka caawdaan marna waxay ka caawdaan roobkooda markuu du'o because biyihii baa waxay fadhiisanayaan dhulkii markay fadhiistaan dhulkii jidad fara badan Soomaaliya ma laha saan ognahay jidadka inta badan ee Soomaaliya ku yaala waxa weeye waa jidad dhiiqo iyo adiga noqonaya because waxa weeye
jid laami u samaysan maaha laba waxaa kaloo bilowmaya muxuu ahaa dhulkii inayna sewage lahayn oo dee biyaha qaar ay dadka harqiyaan waan arkaynaa hadda togdheer togdheer muxuu ahaa magaalada burco aqalo fara badan inay burbureen taasoo ay sababtay ma garanaysaa togii oo u malayso waxa la yidhi biyo xidheen buu marayayba laakiin biyo xidheen lagu sameeyey marka farsamooyinkii iyo dadkii way dadaalayaan balse laakiinse wax fara badan baa ka maqan waxa naga maqan iskaa wax u qabto siyaad barintuu noolaa alla yaa raxma raaximiin dadku wuxuu kula talin iskaa wax u qabsay jirta iskuulaad lagu dhiso in maaragtay wadooyinka lagu xaaqo in maaragtay qashinka lagu ururiyo in maaragtay ubaxa kacaanka maaragtay lagu koriyo anyway adiga waxyaabo badan oo iskaa wax u qabsaa jirta wadda badanna way ka jirtaa waad meeshaad ku nooshahay meeshaan ku noolahay waad dareemi kartaa communityga inuu wax qabsado war haddaana communitygu waxba qabsan dawlad hal nin oo meel fadhiya xafiis waxba kuuma qaban karo ninku milyan oo qof baahi walba miyuu ogaan karaa ma allah subxaana watacaala ayaa uu dadkan abuurtay midna waa faqiir baa laga dhigay midna taajir baa laga dhigay mid curyaan baa laga dhigay mid lugaa la siiyey waa un maaragtay cimro ilaahay weeye oo dee waa wax ilaahay ugu talagalay in maaragtay dadka aanay wada sinaan karin inay dadka haddii wada sinnaadaan xigmaddii baa tegaysa ma ogta xigmad baa ku jirta marka anigu waxaan aaminsanahay in dadka soomaaliyeed ay yidhaahdaan war annaga maxaan qabsan karnaa gurigaaga ka bilow dariskaaga ka bilow xaafadda kuugu soo sokaysa ka bilow xitaa diinteena waxay sheegtay 40 qoysee kuugu sokeeyay 40 kaa sii jeeday 40 kaa sii jeeday baraashinkay cunaan ogow adi 40 kaa sii jeeda iska dhaafee cunugaaga inuu cunay baabad ogeynba big problem oona haysta waxa weeye waa annagii wax ma qabanayno wax walba waxaa la rabaa in madaxweynaha lacagtii buu cunaa halkaasuu fadhiyaa eed un adigu eed socota way la meerayso waa eed aan dhammaanaynin soomaalida waxaa ilaahay maaragtay ha naga dhigo dad wax qabsada oo iyaga xoogooda aamina haddaad wax yar oon waxba ahayn maanta samaysato hal qof haddaad maanta cunto siiso inta adduunka ku nool qof ka mida ayaad wax siisa xitaa waa wax weyn waa wax weyn ma aha wax yar marka waxaan anaga aan rabnaa in isku imaano oo dad walba meesha ay degan yihiin ay hagaagsadaan insha allah marka beledweyne hadda waan ognahay webiga Ethiopia biyo xidhan inay hadda u samaysatay also marka qaarkood biyo xidhanka marna waa la xidhaa marna waa la soo daayaa hadduu dee inkastoo hadda umalaynayn inaan la soo daynayn laakiin long termka muxuu ahaa biyahaas hadduu ay buuxsamaan ila koronta ay rabaan inay ka dhaliyaan Ethiopia markay biyahaas buuxsamaan qaar bay soo daynayaan haddii kale dee wuu fatahayaa moogta gidaarku jabinayaa markuu si yar badan banayaba qaar bay kasoo daadanayaan sidee u saamayn doontaa haddii aanay dadkani haddaba aanay si tabaabushaysaneyn oo muxuu ahaa webiga aanay u samaysanaynin biyo xidheeno ama biyo xidheen maaha muxuu ahaa biyo kaydin sidee bay u saamayn doontaa waxaan maaragtay biyahan waa biyo ilaahay subxaana watacaala keeno bini'aadankaa sidiisana masakiyow hadduu wax isku hayo qofna qof wax ma siiyeen qof walba qofka kale intiisa yar buu ka xiran lahaa laakiin waxaan waa wax natural ah oo maaragtay aan u malaynayo inay ani ahaanteyda maskaxdeeda markaan eegay xitaa hadday xirtaan inay maaragtay ay khasaare kala kulmi doonaan waa waxa biyo soo ilaa iyo Egypt soo saa u cararayeen marka waxaan sheegayaa biyaha marka biyo xidheenka la xidho ma garanaysaa hadda weli biyihii waa socdaan balse waxaa laga yaabaa mararka qaarkood inay soo daayaan obviously biyo xidheenkaas ay haystaan haddii ay mararka qaarkood ay hal mar inay waxaad ka wadaa ay xiran karaan oo ay bas biyo badan doonin mararka qaarkood hal mar bay soo wada daynayaan moogti
iyagoo xitaa laga yaabo aanan warning aanad Soomaaliya xitaa ama ay la yeelan Africa la dhahaa cidna warning islama yeelatay meesha Africa wax warning la yaad ma jiraan waa wax walba waa kusoo booda iyo kaga nixiso ta kale kaydka waa wax wanaagsan wadamadan hadda aan joogno waxay beertaan Sheekh Mustafa hadlayaan arkay wuxuu 3 bilood ba iyaga dhanba wax beertaan buu yiri saddexdaa bilood ayay kaga baxaan 9 bilood ee soo socda cawska waad aragtay saas inta u duuduubaan jawaan ku duuduubaan bay meel u dhigtaan xoolahooda annaga marka roobka noo dhaanta la ciyaaraa waa la booboodaa bisha ku xigtana waa la ooyaa waxa xoolihii baa dhamaaday teeda kale annaga waxaan nahay xoolaha xitaa qofka reer miyiga ah guurow baa dilay Soomaalida xoola raacato waxa la dhihi jiray dadku xoolaha meel buu u samaystaa halkaas meel buu ku quudiyaa deegaan fiican bay yeeshaan qofka hadduu meel degnayn waa dhibaato uu soconayo xoolaha Soomaalida waxa dilay arigaas meeshuu raashinka ka raadsaday u raacaan arigaa xogaamiyaba iyaga intay ariga haysan lahaayeen xooli arigii baa meeshaas daaq laga sheegay buu ku leeyahay awrtiisa u raran waa reera madege guuraamadega ilaa baka qurbaha soo gala xitaa guuraamadegahaas aan ugu dhacay waayo beyt qofka haddaanu lahayn ama aanu guri galan ama aanu meel aasaas lahayn uu degan yahay oo uu dee ku salaysan yahay nolosha qurux ma laha soo marka waxaan aaminsanahay in ay sameeyaan reer miyiga maaragtay ariga haysta ee xoolaha haysta inay degaan samaystaan inta ay xoolo raadin lahaayeen cawska meel hebel ka da'ay roob ka da'ay in ay iyaga caws u samaystaan inta ay kaga bixi karaan jiilaalka in waa 3 bilood ama 4 ma qaantay tahay ma xixi karo waxaan ku weydiinayaa dadka Soomaaliyeed ee muxuu ahaa adduunweynaha ku dhaqan sidee bay maadaama ay iyagu xifradii ugana horeeyaan aqoontii sidee bay uga bedeli karaan dadka Soomaaliyeed ee aanan aqoontaas iyo fahamkaas aan wali gaarin inay bilaabaan ma garanaysaa sidan adduunweynahan kale maaragtay xoolihii hal meel lagu sameynayo looma sameynayo biyo waxa laga yaabaa loo sameynayo meel daaqsin dadka waxa wax lagu gaarsiin karaa wax la tuso laakiin qof walba oo community-ga ka mid ah ama meel haysta dhegeyso qofka dadka waxa wax lagu gaarsiin karaa in wax la tuso marka wadamadan aan joogno dadka haddaad maanta oo dhan wax u sheegtid haddaad maanta oo dhan aad leedahay saas iyo saasaa dhici doonta dadka in maaragtay wax akhriska oo kale loo sheego buugag la tuso barnaamijyo loo soo jeediyo loo jeediyo sida ay wax u tacaban lahaayeen wacyigelin badan bay u baahan yihiin marka aad wax samaynayso marka wacyigelinta haddii dadka Soomaaliyeed laga ilaaliyo loo yiri ama adigu qaybtaasaad la jirtaa ama qaybtaasaad la jirtaa oo wax kale oo wacyigelin ah ama in la kobciyo dadka Soomaaliyeed maskaxdooda la diiday sidee bay ku kobcaysaa ama qof walba oo meel walbaba ama community leader ha ahaado ama meel kale ha joogo ama meel ay dadku isugu yimaadaan oo community-ga ka wada dhaxaysa mid walbaba uu raadsanayo wax isaga benefit u leh uunan eegayn dadka Soomaaliyeed sidee bay dadku horumar ku gaari karaan wallahi waa su'aal fiican laakiin anigu waxaan aaminsanahay inta isla joogtaa isku dana inta meel wada degan baa isku dana inta ilaahay wax wada siiyey oo wax iskugu daray baa isku dana adiga aabaha iyo hooyada qofkay dhaleen haddaa kala meel degan tihiin aydan waxba iskugu jirin isku dan ma tihidin laakiin qofka deriskaaga isku dan baa tihiin waayo hal wadaad ma wada maraysaan subax walba waxaan aaminsanahay inta isla joogta ee isku degaanka ah ee isku meel ka soo wada kacda ee isku dantee duruufta iyo maaragtay dhibku wada haysto intaas inay ka tashtaan aniga waxba igama gelin oday madaxweyne oo meel kala fadhiya iyo mid kale oo halkaa fadhiyo isku qabiil lahay iyo
that's big, no, it's not big deal waxa muhiima intaan isku danta nahay ee aan isku degaanka nahay ee maalin walba inta dhibkiisa nagu wada dhacayo aniga ku dhacayo caruurtooda ku dhacayo xoolahooda ku dhacayo xoolahayga ku dhacayo waxa looga hortagi karaa in dadka loo sheego sida adduunka u nool yahay wacyigelin loo sameeyo hadda markaad annaga waddankan imaanaysid waxa lagu siinayaa buugaag waxa lagu sheegayaa dhaqanka waddanka waxa lagu sheegayaa sida loo nool yahay waxa lagu sheegayaa markaad wax rabtisaa u raadsan lahayd maaragtay in loo sameeyo wax sheegis anaga wax sheegistaa naga maqan problemka koobaad tiifiyadeena laga wacyigeliyo war sidan ha la sameeyo war sidan ha loo qabsado wax war ha loo baaro sidan markaa sidan cawska sidan ha loo duubto inta tamaandho la xayeysiinaya tamaandho China laga keenay inta la leeyahay ku heesa loo qaadayo waxa ka muhiimsan in dadka loo sheego aye waa runta ma ka socda FTV-yada Soomaalida ay lacag ku gurtaan waxa interest bay noqdeen interest waxa ka muhiimsan dadka in loo sheego tamaandhada in halkan uga bixi karto oo la yiraahdo ka beerta war maaragtay iska waxa u qabsada war beeraha tabcada war kalluunka maaragtay badda ka tabcada war maaragtay bariga iyo badda maanta wadan qani ah weeye waa wadan aan la soo saarin nimcadiisi iyo macdantiisi te waxa la yara xadxada mooyaane waa wax official aan u hayna ma laha ilaa hadda meel walba shidaal baa ka buuxay Soomaalida dhahdaa anigu idaacada kale kama maqal shidaalka qof soo saaran kari waaye kalluunkii badda buuxiyey dawaada tahay marka hore in laga bilaabo way waxii dhulka ka soo bixi lahaa iyo badda ku jiray aniga waxa way si aad baraan dhageysanayay shalama ah sadaraad khudbad u jeedinayay you can imagine soo hadlay waxa uu ilaahay u naxariistay sheegay wuxuu wax tabcada war beeraha beerta war galeyda beerta war masakada beerta war maaragtay digirta beerta war kalluunka baddiinaas waa nimca ka buuxday taga war qofka haduu baahan wuxuu yiri qofka haduu baahan yahay malaha hami malaha wixii doona laga sameeyay qof baahan baa tahay qof tuugsanayana cidi ma rabto de last 30 years waan tuugsanaynaa adigu waxay dadka u moodaan dadkan dabada jooga inay khatar yihiin cirkay dhulka sankay taagan laakiin waa tuugsi un de yara nasakhano waa iska tuugsi anyway marka waxa muhiim ah dadka inuu wadankiisa aamino wadanimadiisa aamino marmar baan waxaan fiiriyaa barnaamijyo Mareykanka ah waxa arkaysaa dad degan isakiyo meel saxara ah laba baa jooga beer yar bay iska haystaan gaari yar oo taraaga iska wataan dhar jeexan iska wataan koofida xitaa waa dhamaatay waa halkiisaas uu habbi ku yahay wadannimo inayna gasho oo maaragtay wadankayna aan aamino dadkuna ay wax wada qabsadaan dadkuna ay mid walba uu noqdo wax soo saar maaragtay haddana de anyax baaba wadankii eber ka dhigo anigu meel laga soo diray ma garanaye ya dadka awal wax ma beeran jiray qarihii yaraayo u bixi jirayna anyax baa eber looga dhigay waxaan maqli jiray ilaahay ma kadegada cad uu kuu tuuraya anyaxaas xitaa markuu caruurta uu dhalo ma garanaysaa meel baa lagu qaban karaa isagoo markuu yar yahay baa la baabi'in karaa la gumaadi karaa maya anyaxa waxaan is iri meel buu ka soo guuray ama waa wax loogu talagalo maraakiib baa sitay ani waxaan isirtay ma indha yartaasaa soo tuurtay ma ogi adiga waa wax la midbaa wadanka ma garan karo waa milyan beerihii wuu dhameeyey dadkii uu dhameeyey war waa laga cawdan xitaa cawskii arigii buu ka dhameeyey waa basiibo haye marka hadda waxaan arkayay Mareykan wala waan ka buufinayaa wadanka oo maaragtay de caawinaya marka waxaan dhihi doonaa Soomaaliya beelaha farta beeraha hala fasho tacabka hala falo kalluunka la soo saarto aamina inaa wax qaban kartaan dadka wax yaqaanana de iyana jeebkooda kaliya inayna intaasaad wax dhacayseen aanad is oranina meel walba aad ku jirtaan ama meel walba aad fadhidaan ama organization walba aad fadhidaan
ku dadaala dee waddankiina sidaad u horumarin lahaydeen ana jeebkaaga keliya ka warwarin iyo reerkaaga iyo waxaad siinayso waxaasoo dee noqon kara xaaraan haddii aad adigu ummadda wixii lagugu dhiibo haddaad dee jeebka gashato waa masiibo waxa weeye ilaahay ha naga shartiro waa masiibo oo dee dad dhan baa wixiisa jeebka gashanaysaa laakiin anigu waxaan aaminsanahay qabqable iyo siyaasi iyo mid NGO wata iyo mid cirka u booday Soomaali waxay uga hortegi kartaa iyaga oo inta meel wada degan isku dan noqdaan ay la xisaabtamaan aanay wehilin dee ninkan ay la daba waxaana baabiyey waa hadday sawir intay ka qaadaan ninka NGO-ga wata dad buu soo sawirayaa dad buu sharciyadooda ka qaadayaa dad buu beebeen buu samaynayaa sawir laga qaado NGO-giisa wixiisa la ogaado website-kaasi la geliyo la yidhaahdo wixii uu maaragtay uu dadkan uu magacyadu ka qaad haddii corruptionka lala dagaalamo oo ogaado ninkaas in laga daba tegin adduunka iminka waa wuxuu noqday koombo yar adduunkii beenta la kala sheegi jiray iyo waxa loo kala maaragtay warku 2 sano sii socon jira ma aha warkaa maanta sheegtay berrito wuxuu ku jira isla subixii wuxuu ku jiraa meel kale moogta mid walba oo tuug ah haddii lasoo bixin lahaa banaanka lasoo dhigi lahaa magaciisa saddex inta la sheego la dhihi lahaa hebel oo hay'adaas wata 2 daasadood oo caana ayuu keenay maanta magaaladaas inta kalena isagaa qaatay wax baa la heli lahaa dadka wax keenaya waxba isna isaaqada waa ka xirmi lahayd marka dadka uu wax ku cunayo ayay ahayd inay ogaadaan lana dagaalamaan musuqmaasuqa marka waxaan leenahay musuqmaasuqa halala dagaalamo dad baa xitaa waxay qaadayaan dad baa u tegaya muxuu ahaa hadda beledweyne hadda disasterkan ka dhacday ama dhibaatooyinkan ka dhacday ama meel walbaba dad baa markaa sokor yar bur yar muxuu ahaa 2 kiilo ama 3 kiilo sokora iyo bur yar iyo saliid yar baa la hordhigayaa halkaasaa looga tegayaa waana lagu hilmaamayaa waxyaalahan la dagaalamayna waa waxyaalahaas oo kale maxaad ka qabtaa adiga waan wax yar kadibna waa xiranaa showga adoo soo gabgabaynaya wallaahi dee waxaan ka qabnaa in dee waxaan ka qabnaa in maaragtay musuqmaasuqa lala dagaalamo in dadku isku duubnaadaan in wax la wada qabsado in waddankeena aan aamino in biyahaas na dilayo na hafinaya aan ku dadaallo inay xitaa aanu dee ku noqo dadka ay meel dhigan karaan ama maaragtay kaydsan karaan muddo dhowr bilood ah xoolaha ka cabsan karaan beeraha ka waraabsan karaan ay maaragtay u samaystaan meel kayd ah maaragtay biyo xireen loo sameeyo magaalada si aanay khasaare u imaanin ilaa waxa weeye yuug iyo yamaanyuug haddaan noqono tacabno markuu roob doo intiiba qaado waa yuug iyo yamaanyuug ila inta derbiga dhisaan dhameeyaan markay dhameyn rabaan bay ka tagaa subaxii isagoo dhisan ay u yimaadaan hadday soomaali yuug iyo yamaanyuug la sheegaya ay noqotona waa gooni insha allah da raaciyo insha allah hala raaciyo xooga haddii sanadkii waxaad shaqaynaysay daad u yimaado sonkortii dhufto caruurtii dhufto cunugaa 5 sano soo korisay hore u dhufto wallaahi waa masiibo ilaahay naga qabto maaragtay in dhibka markuu qofka soo gaaro uu ka gaashaanto waa muhiim hadda annaga meeshaan deganaha waa waddan iska barwaaqa qorrax male waxba male dadkan waxay gooshaam u samaysteen reer galbeedka ah dee meel uu ku nasanayo ma haysto weliba kaan kuwaa nala joogna ninka norwejiyaanka ah meel uu ku nasanayo ma haysto haddii uuna guri iyo nolol iyo wax samaysan oo qabowga ka gelin marka aqliga wuxuu shaqeeyaa markuu dhib soo gaaray laakiin soomaalida anagu aqligeen waaba sii dumaaba dee nimcadaas oo dhan baan haysanaa baddaasna ugu xeeran muxuu ahaa dhulkaas beeraha leh cusbadii leh wax walbaba leh dhul qurxoon leh marka waxaan u malaysaa inaan dadkuna la xisaabtamaynin u baahan yihiin fruitkeeniyo dee amazing ah soomaaliya fruitka lagu yaqaanay dhulkii uduga ah marka dhul qurxoon oo muxuu ahaa dee
buuro iyo maasha allah leh wade waa alxamdulilah laakiin waxaan rabnaa inaan halkan aan kusoo gabagabayno insha allah waxaan leenahay soomaali ha israacdo soomaali ha guulaysato soomaali rafaadka iyo dhibka ilaahay ha ka bixiyo kuwii nimcaysta ilaahay ha naga dhigo maaragtay wadaadadana iyaga laftigooda inay wacyigeliyaan maxaadirooyinka in lagu soo daro anigu waxaan qabi lahaa maxaadirooyinka in lagu soo daro war seen ku noolaanaa war sideen wax ku qabsanaa maantoo dhan aakhira laga sheegay in adduunkii baan ku noolnahay adduunka see ugu noolaanaa see uga baxnaa rafaadka see beenta iskaga daynaa see wax u qabsanaa see maaragtay carruurteena meel maaragtay waa cabanayaan mar walba waa cabanaya waxay kuleeyahay carruurtii baa naga baaba'ay carruurtii waa nalaga duufsaday baababa si loo badbaadiyo dadkan inay maxaadirooyinka kusoo daraan bay ahayd sida loo noolaan lahaa mujtamac wadaadnimada ma aha inaad ka sheekayso kitaabka diinta keliya ma aha diinta waxay qabtaa sida loo noolaan lahaa andhufta dhulkaa ku tufin baa lagu yidhi xaako dadkaa dhibin baa lagu yidhi dee aakhirana way tahay fiiriya aakhirana way tahay adduunna way tahay akhlaaqiyan saad adduunka ugu noolaan lahayd baad ku jirna tegaysaa baa lagu yidhi inaad dadka dhibin dadka dilin dadka kaa nabad galaan aadan maaragtay intaad kiilo basala soo cunto safka hore masaajidka soo gelin maaragtay waxyaabo badan oo waxaa jira aan intaan qabsanno dhaqan ahaan iyo akhlaaq ahaanna toosinaya culummada ha iska daayaan jahannaba halkan soo socoto iyo meel hebel baa lagu cadaabayaa iyo hebel baa xijaabkii tuurtay waa inay dhalinyarta wacyigeliyaan ee dhahaan war maxaan qabsanaa war beeraha fasha war madaxweynaha daaya war ummadda maaragtay wax u qabta war maaragtay ay dee hogaamiyaan hadda maanta ina madaxweyne hogaaminaya male iyaga adduunka la maqlayaaye culummada culummada 24 saacadood meel bay fadhiyaan ee wacdi ka jeedinayaan wacdiga waa inay kusoo daraan sideen dalkeena u dhisanaa ila iyagoo meelahan qurbe ay joogaan waa kuwa nimcay ku jiraan meelaha nabadda joogay dad baan madfac ka kordhacaya 24 saacadood waa xuquuq la'aan weeye ma fahanti cunuga madfaca ka kordhacayo ee qoriga loo dhiibay madaxa laga dhaqay ee balaayo kale ku shaqaysanayso inay ka fekeraan ka gaalka noqonaya iyo kan noqday madfaca ka kordhacayo waa same situation culummada ha ku soo daraan sideen waddankeena ku dhisanaa kee sideenska soomaaliya jooga iyo kan qurbo jooga ku badbaadinaa warsee sharafteenii u soo ceshanaa iyo haybadeenii akhlaaqdeenii soomaali lagu yaqaanay mujtamacuna waa muxuu ahaa waa graan haddii aan graantaas aan la badbaadin adiga ayay kugu soo laabanaysaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu sheegi jiray wax walba oo ummadda ay ku badbaadayso wuxuu sheegi jiray wax akhlaaqda wanaagsan wuxuu sheegi jiray adduun iyo aakhira waa laisku barbarwadi jiray dee ma fahante maaha in aakhira laga sheekeeyo dee adduunka waa lagu noolyahay adduunka hadda akhlaaq iyo wanaag loogu noolaan dee aakhira maxaad ku gaariba aakhira waxaad ku gaaraysa malaha caruurta loo daneeyo qurbahan joogta iyo kuwa soomaaliya jooga qoriga wata 3 jir baa qori balwad leh kuwan abaroon oo ID la weydiiya haddii meel isdhaan gaalada ID weydiinaysa oo dhaysa meeqa jir baa taa waxaad arkaysaa cunug waddankii jooga oo qaad laga gadaayo ka war maxaa iga gala oo sigaarka cabaya oo quraankii aanan aqoonin xitaa quraankii baa xitaa wuxuu noqday ma garanaysaa qofka qaadka iyo sigaarka ka gadaya ka waran ilmo yar oo 5 jir ah sigaarka aad ka gadaysa so mahlika ma aha insha allah intaasaan ku dhamaynaynaa kowde intaan is arki doono waxa halkani waa wadani podcast waxaan ka hadalnaa xaqiiqooyinka dhibaatooyinka ka jira waddanka Soomaaliya iyo shacabka weynaha ku dhaqan daafaha adduunka haddii aad rabtaan inaad nagala qayb qaadataan wadani podcast waxaan soo galnaa khamiis walba 3 p.m. waxaan joognaa magaalada marka Minnesota ay ka tahay ina meelaha kala eego weeye insha Allah waxaan oran lahayn intaan is arki doono sidaas nabadgelyo
waan xiri lahaa wax kale inaan kusii daraa rabay laakiin intii aan oran lahaa iyo wax ka fiican ba noqoy adaa yiri waxaan oran lahaa magaca ha jiro Soomaaliyan ha noolaato Soomaaliya ha israacdo dadkeeduna ha israacaan amiin ilaaha noo soo celiyo sharafteena iyo qiimahaan lahaan jirnay Soomaali dadka ugu qiimo badan bay ahaayeen Afrika oo dhan insha Allah waana soo noqonaysaa biidnillaahi alkariim waan u duceynaynaa bishaan Ramadaan fayraskana ha laga duceysto qabiilkana ha laga duceysto waxtar xumadana ha laga duceysto ilaahay in xooggeedna maaragtay dad wax qabsan kara inaan noqono آمين nimanka taajidka ilaahay hana loo baryo annagana waa baryaynaa biidnillaahi alkariim asalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته